Anta waxaan rabaa in aan muuqaalkan idinkula wadaago habka ugu wanaagsan ee aad u korin kartid Instagram. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Waxaan ahay Cabdisamed Saciid. Haddii aad halkan ku cusub tahay fadlan soo dhawow. Haddii aad tahay asxaabtii hore la joogtay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Haddaba waxaa jira siyaabo badan oo aynu u isticmaalno korinta ama ay u isticmaalaan dadku Instagram. Laba hab ayaana ugu caansan. Labada hab ee ku saamaxaya in aad u korisid Instagram-kaaga. Koowaad waxay noqonaysaa si organically in aad u korisid, si dabiici ah in aad u korisid adigoo isticmaalaya istiraatiijiyo fara badan. Tan labaadna waxay noqonaysaa in aad isticmaashid website applicationo kaas oo ku saacidaya in aad heshid likes fara badan. Sidoo kale waxaa jira applicationo ku siinaya aad ku bixinaysid lacag kuwaas oo ku saacidaya sidoo kale in ay ku siiyaan dad aad u fara badan. Haddaba waxaa jira habab aad u fara badan laakiin hababkaas waxaa loo yaqaanaa fake, sida in aad Instagram aad application ku samaysatid, application aad ka faa'iidid yani followers in aad ka faa'iidid iyo in aad iibsatid dad kale. Marka aad aragtid Instagram-kaaga waxaad arkaysaa in ay kala noqonayaan followga dad aad u fara badan. Dadkaasina waa dad aan ahayn markii hore organic ama si dabiici ah u yimi Instagram-kaaga. Haddaba muuqaalkan waxaan rabaa in aan idinku kala lafaguro sida aad u heli kartid audience dhab ah ama dad kana ku xiran page-kaaga Instagram-ka dhabka. Haddaba waxaan isticmaali doonaa istiraatiijiyad fara badan oo ah kuwa ugu caansan ee loo maro in aad heshid dad aad u fara badan oo ku xidhma bogaaga Instagram-kaaga. Haddaba maxaa ka mid ah hababka aan isticmaali doono? Muuqaalo fara badan ayaan ka sameeyay sida aad u heli kartid like auto like ama waxyaabaha la yiraahdo dibadda likeska oo ku saamaxaya application-ka. Badana khatar fara badan ay leeyihiin. Badana likeska ama page-ka waxa ku shaqeeya qaybtan hackerska kuwaas oo ku saamixi kara ay u saamixi karto in ay ka jabsadaan page-kaaga. Haddaba muuqaalkan waxaan isku eegi doonaa sida organic-ga loo koriyo Instagram page-kaaga. Sidoo kale waa habab aniga aan waqti badan isticmaalayay. Marka koowaad waxa jira wax loo yaqaano algorithm-ku wuu fara badan yahay Instagram, YouTube, Facebook. Algorithm-ku waa system-ka bilaadan oo ay ku saamaxaya in aad u isticmaashid mashiinadaas oo dhan. Waa mashiin qaabka bilaadanka u shaqeeya kaas oo ku saacidaya fikradaha qaar iyo waxyaabaha qaar haddii aad si wacan u saxdid kor ugu qaadaya helitaankaaga likes and followers iyo wax kasto media aad uga baahan tahay. Sistamada dhamaantoodna way ka sameeyeen algorithm-ka. Haddaba waxaan isticmaali doonaa in aan algorithm-ka uga faa'iideysano dhanka saxda ah si uu wax walba oo aynu ka doonano media maadaama aan hadda Instagram isticmaalano uu kor inoogu qaado. qaybta koowaad waxay noqonaysaa profile-ka aad ayuu muhiim u yahay. haddii uusan profile-kaagu habeysnayn ama qaybtan bio loo yaqaan uusan habeysnayn Instagram-ku wax badan ayaa wali ka dhiman. marka koowaad waxaa jira qayb uu aqoonsan yahay Instagram-ka oo loo yaqaan bio waxaa jira username iyo name. halka name magacaaga badana ama waxaad ku bedelan kartaa shaqooyinka xirfadaha aad leedahay kuwaas oo ku saamaxaya channel labaad oo haddii uu qof soo raadiyo Instagram-kaaga uu fursad u helayo in uu helo bio-haaga ama haddii uu ku raadiyo sidoo kale investment ama investor uu soo bixi karo Instagram-kaaga. sidoo kale bio waa in aad ku qorataa xirfadaha markaas aad ku wanaagsan tahay aadna isleedahay xirfadaha aad ku wanaagsan tahay aadna isleedahay way ku saacidi karaan in aad ku qoratid bio-haaga. aad ay muhiim u tahay. taasina waa qaybta koowaad aan ka hadlayo in aad dhammaan story-ga bio-ha iyo wax walba oo Instagram-kaaga aad iska saxdid. sidoo kale waxaan ka dhigi doonaa qaybta labaad. waxaa jira applicationo ama ku saacidaya kuwaas oo ka saacidaya in aad Instagram-kaaga kala saartid oo aad kula soo hadhid dad activities ah. marka waxaa jira applicationo fara badan. badana application-kan ayaa ugu caansan. application-kan ka baaro iska kala gareed dadka aan active-ka ku ahayn kuwaas kuma saamaxayaan xitaa in aad like heshid haddii ay kugu jiraan iyo wax kasta. waa dad fake ah. badana iska kala gareed si ay kugu soo hadhaan dad activities isaga ayaana ku kala sheegaya application-ka. qaybta saddexaad aan sidoo kale aan idin wadaagi doono waxaa ka mid ah in aad ugu yaraan waqti yar gelisid Instagram-kaaga maalintii 10 daqiiqo 15 daqiiqo oo aad muuqaalada ama dadka kugu jiro oo dhan aad like u saarto. sidoo kale qaybta search-ka inta aad tagtid aad dad badan like u saarto. sidoo kale kaas wuxuu ku saacidayaa in uu algorithm-ku dad badan tuso muuqaaladaada. sida videogan aan idinku wadaagayo badana waxa ugu badan ee ku saacidaya waa in aad dadka kugu jira aad like badan u saartid sida aad ku arki kartid muuqaalkan oo ah bogeyga Instagram-ka.
qaybta afraad sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa best time to upload waqtiga ugu wanaagsan ee aad soo gelin kartid Instagram-kaaga. waxaa jira waqtiyo aad u wanaagsan oo ku saacidaya in aad ugu yaraan dad ka badan dadkii hore ee like saari jiray muuqaaladaada aad hesho. sidoo kale waxaad ku ogaan kartaa profile-kaaga ayaa tagaysaa halkan ayaad ka arki kartaa qaabka aan kugu sheegayo. sidoo kale waxaa jira qayb kale oo la yiraahdo impression ama reach. dadka profile-kaaga soo booqda, dadka muuqaaladaada daawada, dadka muuqaaladaada badana waxaas oo dhan waxaad kala socon kartaa qaybtan oo ku saacidaysa bal in bedel dhaneed uu ka iman karo waxyaabihii aad ku saaciday Instagram ku saaciday. sidoo kale impression ayuu ku siiyay imisa dad ayuu gaarsiiyay muuqaalkaagii marka aad isticmaashid istiraatiijiyadan waxaas oo dhan ayuu ka saacidaya. sidoo kale qaybtan waxaan kala ku darayaa HTV-ga in aad muuqaal soo gelisid. sidoo kale live-ka aad ayuu muhiim u yahay markasta oo live yimaado dad badan ayuu tusi doonaa muuqaalkaaga. fadlan haddii aad awoodid isku day isbuucii hal mar laba mar in aad marun live gashid waqtigu doono aleekaado aad ay muhiim u tahay. qaybta ugu dambaysa ee aan kaga hadli doono muuqaalkan waa hashtag waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee Instagram ku keenaya followers iyo likes aad u fara badan. sidoo kale hashtag waxaad u adeegsan kartaa habab aad u fara badan. badana hababka aynu u adeegsano hashtag aad ay u khaldan yihiin ama ma fiicna. muuqaalka yar ayaan kugu sharaxi doonaa hashtag ugu wanaagsan iyo hababka ugu wanaagsan. saaxiibayaal waa muuqaal yar oo kooban aan kaga hadlay hashtag waxa ugu muhiimsan oo jira waxay u qaybsamaan 4 qaybood. waa mid aad u yar very small hashtag loo yaqaan waa hashtag ka yar kontonka sawirkan screen-ka ayaad ka arki doontaa. small ayaa jira waa mid ka yar 100,000. medium waa inuu ka yaraadaa 500,000. large-na waa inuu ka bataa 500,000 milyan iyo wax kasta oo aad sameyn kartid. marka sida hashtag loo raadiyo waa simple, qof walba uu garanayaa, balse aan in yara tuso. waxaad markaad soo furtid Instagram-kaaga qaybta search-ga ayaa tagaysaa, kabacdi waxaad ku qoraysaa hashtag kasta oo aad u baahan tahay sida waxaad ku horeysiinaysaa calaamadda hashtag-ga.